وكما عبد الله علموغي وأقوياهن قبرد iyo way aragnimo fog u leh u saldhigida iyo kobcinta isgaarsiinta iyo ganacsiga ahaana korneel hore oo ka tirsanaa ciidamadii xooga dalka Soomaaliya dawladii dhexe ee burburtay ciidamada Mareykanka ayuu u qaabilsanaa qaybta information technology-ga waxa uu wax ku bartay wadamada Ruushka iyo Mareykanka hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayuu uga soo shaqeeyay wadamada Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan iyo dalal kale oo dhowr ah Soomaaliya waxa uu ka soo noqday wasiir maamulaya 3 wasaaradood Cabdullaahi Cilmooge Xirsi waa shakhsi khibrad shaqo iyo mid aqooneed oo ka badan 35 sano u leh mihnada isgaarsiinta casriga ah saadaalinta dhaqaalaha iyo tayanta ciidanka waana shakhsi ku wanaagsan dhageysiga iyo la dhaqanka bulshada Cilmooge waxa uu mar isu soo taagay qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya xilligaas oo uu bulshada Soomaaliyeed u ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono hadii uu ku guuleysto horumarinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan wada hadal dhab la galayaa walaalahan Soomaaliland wixii tabashaa waan ka garaabaya heshiis baan geed gaaban u fuulaya tanazul baan u sameeynaya midnimada awgeed si xal loo helo maamulka ahlu sunna wal jamaa khilaafka ka jira waan xalinaya dawladdu waxay ahayd inay xaliso shacab baan nahay waan la wada soconaa meesha wax ka siihiin way soo dagaalameen nabadgelyada way la dagaalameen waa looga baxay arintaa waan soo afjaraya sidoo dalku hal dal ku noqdo wax soo saar iyo isku tashi ilaa 60kii waxa la inagu yaqaanay inaan gacan hororsi toogsi iyo musuqmaasuq taa waan la dagaalamay waxaan u bedelayaa isku tashi beeralayda waan dhiirigelinayaa ayu anta WFP marar badan ku soo aadiso markii dalagoodu go'o mas'uuliyad baa ka saaran dawladda in la xanaaneeyo beeralayda xoolaha dhaqatada sidoo kale waxaan horumarinayaa kalluunka in la beerto maadaama Ilaahay hodan naga dhigay cadaaladda in loo siman yahay waxa la yiraahdaa cadaaladda ahday waa cadaalad la waayo kale hadda waa musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo dhawaan doorashadiisu ay dhici doonto dadka wax ka yaqaan musharax Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayaa ku sifeeyay in uu yahay shakhsi wanaagsan naxariis badan u nugul shacabkiisa ayna u baahan yihiin shacabka reer Jubbaland in uu hogaamiyo Jubbaland way u baahan tahay isbedel waa u baahan tahay ninkii bedeli lahaa wuu yahay asagu Cabdullaahi waxaan qabaa Soomaaliya colaad badan baa jirta dagaal baa jira mushkilad baa jirta niman inkaar qabaa jira waa loo baahan yahay waayo iskool weero ka soo baxay loo baahana nin iska fadhiyo oo buula gaduud aan gaari karin ma loo baahana ninkaan iskool weero ka soo baxay wuxuu ka bilaabayaa marka ugu horeysa sidaan anigu qabo anu askari baan aan jiray waxaan qabaa inuu ka babaahayo ciidan uu ka bilaabayaan aaminsan anigu ciidankaas muxuu yahay ciidanku waa kii wadanku xoray lahaa meequu ku wadi karaa meeqaad maanta ciidankaagu awood u leeyahay inuu hawl galo meequu saad haystaa dalaal bay rabtaa Soomaaliya Jubbaland waxay u baahan tahay inay hore u kacdo buula guud dhaafto haddaad xilka Ilaahay kugu guuleeyo odayaasha wixii 1950 iska ilaali ku kala tuurayaan laakiin dhalinyarada shaqo u abuur dhalinyarada xilka u dhiib dhalinyarada soo dhaweyso la taliyaasha ka dhigo kuma khiyaanayaan 1950 dadkaas hadda la tashato filma anaga aqoon yaqaanaan marka Cabdullaahi wuu guuleysanayaa igu sacbiyay madaxweynaha